haddii aad isku aragtid qandho iyo qufac in aad samaysid 5 waxyaabood waaye si aad isku daaweysid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواء جنرال الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجود في مرينكا أما عذرات كل عفيرة. هدي الجنرال كقعصوب تاي فضلا سبسكرايب ده سيادنا على ساعة مرول بفضلا ريح جنب لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حكى هذا دونا سيدة إسكيجدا وين كرتا كوفيد 19 أما كورونا فيروس. سيا إسكيجدا ويسو كورونا فيروس وحاوبها هنتها إن أوجاتيد على مداها مركا كواد. هدي أد إسكو أركتد خندو إيه قفع إن أد سميسيد 5 waxyaabood waaye si aad isku daaweysid. qodobka koowaad inaad kontaroolshid naftaada. qodobka labaad inaad iskarantiishid ama gurigaaga inaad ka soo bixin. qaabkee guriga isugu karantiilaysaa waxa soo dhan way soo socdaan waana sheegi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. cuntooyinka iyo daawooyinka aad u baahan tahay inaad isticmaasho. qodobka afaraad inaad la socotid isbeddelka xaaladaada caafimaad. qodobka shanaad inaad la xiriirtid dhakhtarkaaga. qodobka koowaad in aad kontaroolshid naftaada maxaa laga wadaa. hawalwalin waad ogtahay qofka markuu walwalsan yahay ma qaban karo wax badan mana samayn karo wax walbeeto fariina uu dhakhtarku u sheegay mana xajin karo qof walbeeto oo la walaacana waxa uu qabo ama cudurka uu qabo horumar badan ma ka keeno guulo iyo caafimaad. sidaas darteed qofka waxaa la rabaa in uusan walwalin si uu xaaladda u kontaroolo maskaxdiisu degan. midda kale waa inuu ogaadaa qofka sababtoo ah qofka bini'aadanka mar walbeeto inuu walwalo way u sahlan tahay wax markuu aqoon badan u lahayn. waa cudur saameyn leh laakiin ma ahan cudur 100% dilaa oo dadka wada dila ma ahan. cudurkan dad yar ayaa u dhinta ma ahan qof walbeeto oo cudurka ku dhaco inuu dhimanayo. sidaas darteed maadaama ay jirto fursad badan oo adiga uu saameyn weyn uu kugu yeelanaynin oo kaliya caabuqaas inuu dhibaateeyo neef mareenka kadibna aad ka raysato jaaniskeedu uu badan yahay in aadan walwal badan isku abuurin si 4 qodob dambe soo socoto mid walba u xajisid. qodobka labaad ina gurigaaga ku ekaatid oo iskarantiishid. in marka koowaad qufaca iyo qandhada aad isku aragtid horay kama aadi kartid isbitaalka inta laga xaqiijinayo in waxa uu qofka haayo uu yahay coronavirus iyo in kale waxaa loo baahan yahay gurigiisa qol kamid ah qofka inuu isku karantiilo. haddii kale qof walbeeto qufaco oo qandho ku dhacda haddii uu isbitaalka soo aadi lahaa isbitaalka dadka qaab ugu shaqeeya ma heli lahayn wuuna buuxsami lahaa. dhibaatadana waxaa dhici lahayd mararka qaar qofka asagoo coronavirus qabin inuu isbitaalka soo aado uu iska shakiyo. sidaas darteed waxaa loo baahan yahay qofka in uu guriga joogo. qofka guriga laftirkiisa dadka ma soo dhexgalayo. guriga waxaa loo baahan yahay in uu ka helo qol iyo musqul gaar ah in uu helo hal qof oo caregiver ah qofkaasna contact ama wax taabashaa dhan aysan dhex marin. sidee u dhacaysaa marka waxaa loo baahan yahay qofka xanuunsan in uu qolkiisa ku ekaado qof walba uu la xiriirayo in uu taleefanka la xiriiro in uu mar walba maask xirto in gacmaha uu si joogto ah u dhaqo. sidoo kale qofka in uu qolkiisa uu ku hensado wax walbeeto uu jecel yahay oo markaas ku heen karo qolkiisa si uu u joogi karo environmentiga haddii ahaan lahayd internet haddii ahaan lahayd game haddii ahaan lahayd buugaag oo akhristo haddii ahaan lahayd kitaabo oo akhristo. qofka waa in uu qolkiisa keensadaa waxyaabo uu jecel yahay si uu qolka muddadaas dheer uu u joogi karo maadaama uu guriga dadka kale la degan haddii uu soo baxo oo cudurkan uu aad ugu saameynayo. waxaa kaloo jiro qofka wax u sameynayo ama cunno u keenayo ama mar walbeeto wixii uu u baahda banaanka uga keenayo waxaa loo baahan yahay asagana qaabka uu qofkan ula dhaqmi lahaa in la caddeeyo. in qofkaas mar walba uu iridda kuu soo dhigo wax walba adiga aa u baahan tahay. shay walba uu qofkaas uu taabtay marka la qaadayo in uu bac ku xiro qofka intuusan soo dhiibin ka hor markuu ka qaadayana in uu wato gloves iyo mask inuu wato. lama rabo labada qof in ay mar walbeeto si toos ay isku arkaan. wixii uu u baahan yahay qofka mar walba inuu taleefan ka dirsado. haddii qofkan guryaha badanaa ma jiro musqul oo qofka gaar loo sii karo haddii ay jirto marka meelo sida musqushoo kaleeto uu soo aadayo mar walba in laga fakaro nadaafadda iyo mar walba sida jeermiska looga dili lahaa. iridda meesha la qabanayo gacanta uu saarayo qofka sidoo kale meelaha la isdhihi karo waa la cuskan karaa mar walba ka soo baxo laga nadiifiyo
laguna dhaqo markaas chlorine iyo oomo iyo wax walbeeto oo lagu dili karo jeermiska. waa xaaladda karantiilka saxda ah markii loo baahan yahay. qodobka saddexaad, inaad la socotid isbeddelka xaaladda caafimaad, in aad thermometer lagu soo gado lagu keeno qalabka heerkulka jirka lagu cabiro, kadibna aad la socotid inaad soo fiicnaanaysid iyo in kale. haddii ay qandho adag ay jirto, heerkulkaaga wuxuu ka kormarayaa 36.5 ayuu ka kormarayaa. waxaa kaleeto calaamadaha inaad la socotid u baahan ah qufaca ma sii badanaya, qufaca mase wuu sii yaraanaya. waxaa kaleeto oo rabaa inaad ogaatid oo mar walbeeto inaad la socotid calaamadaha loo baahan yahay. neefqabad ma jiraa ama neefta ciriiri may marba marka ka dambaysa kugu sii noqonaysaa, mase wax neefqabad ah ma jiro. qofka haddii ay da'diisa 50 sano ay ka badan tahay, haddii qufaca uu dheeraado waqtigiisa, markaas waxaa fiican in uu waco xarunta karantiilka ee markaas coronavirus lagula dagaalayo ee oksijiinka laga heli karo iyo ventilatorka, in markaas uu aado si oo ventilator machine loogu xiro. sababtoo ah qofka waayeelka ah ee 50 sano ka badan iyo qofka dhallinyarada ah isku mid ma ahan. qofka dhallinyarada ah haddii uu neefqabad dareemo ama neefta inuu ciriiri ku noqonayso, markaas xaaladiisa emergency waaye, inuu waco waaye, uu tago goobta karantiilka. badanaa sidaa ognahay Soomaaliya ma lahan dhakhtarka faamilka ma jiro. haddii uu jirana ma jiro dhakhtar guriga dadka ugu imaado, ama hadduu jirana dad yara haysto oo dad badan ma haystaan. sidaas darteed dadka aan heli karin ha isku dayaan in qof faamilkooda ka tirsan oo qof dhakhtara taleefanka ugu geeyo, xitaa in nambarkiisa uu goosto, kadibna wixii tala caafimaada markaas oo shaki uga jiro qofka intuu karantiilka qolkiisa ku yahay in la siiyo wixii uu u baahan yahay. waxaa jiro in markaas uu guriga intuu uu joogo uu qaadan karo daawooyinka qandhajabinta sida paracetamolka. ayada marka waxay u baahan tahay in dhakhtar lagala tashto. haddii uuna dhakhtar kuu qorina iska qaadatid, waxaa laga yaabaa mararka qaar in cudurrada beerka ku dhaco mid ka mid a inaad qabtid, hadhowna dhib uu kuu sii geysto kaniinigaasoo adiga wixii dheef aa ka raadinaysa aadan ka helin. sidaas darteed kaniiniga aad qaadanaysid, waxa aad isticmaalaysid, dhakhtarkaaga kuu qoraayo ee qoyska, isku day ama dhakhtarka markaas aad ku xiran tahay in taleefanka lagugu geeyo ama inaad raadisid ama inaad la xiriirtid. haddii marka emergency aa geshid oo qofkii ay dhacdo inuu markaas xaaladiisa caafimaad ee hoos u dhacdo, xaaladda caafimaadna ay gaarto inuu neefqabad qofkii uu gaaro asagoo waa dadka 50 sano ka yar, waxaa la rabaa markaas in xarunta karantiilka markaas uu la xiriiro. xarunta karantiilka sidee loola xiriiraya? Soomaaliya oo kale markii aad u baahan tahay xarunta karantiilka ee coronavirus inaad wacdid ama call centerka loogu talagalay COVID-19 waa 449. markaas wax walba oo adeega aad u baahan tahay ee ku saabsan coronavirus way kula fulinayaan ilaa ay xad inta macquul ah. waxaa la rabaana markaas la aadaya meesha in ay ventilatorradii iyo diyaar ay ku yihiin oo qofkii oksijiin uu ka heli karo meesha, iyo sidoo kaleeto daawooyinkii markaas lagula diriiri lahaa coronaviruskana inuu meesha ka helo. maxay tahay cunooyinkii daawooyinka ku kaalmayn karo si aad ula dagaashid cudurkan COVID-19? in mar walba aad isticmaashid biyo kulul inaad isticmaashid, sidoo kale inaad isticmaashid maraq kulul inaad isticmaashid. sirjiyo badan waxaa lagu sheegay Eeshiyaankii qarnigii 12aad ilaa iyo hadda in ay ku daaweynayeen xirgabka maraq spices leh ama maraq ay ku jiraan ginger iyo bisbaas iyo liin dhanaan ay ku jiraan, in ay ku daaweynayeen. tijaabooyin badan oo la geliyana waxaa la helay inay saameyn fiican ay leedahay qofkana xabka iyo diifka iyo wasaqdana inay kasoo fududeynayso, eena aad waxtar ee u leedahay qofka marka uu qabo calaamadaha hergabka oo kale ama markuu infection uu ka qabo sanbabka oo kale, inay aad u kaalmeynayso qofka in uu isticmaalo. badana inaad u sheegtid qofka markaas ku caawinayo inuu kuu diyaariyo biyo kulul oo kusoo kariyey sanjabiil, sidoo kaleeto uu ku daray spices yaryar sida bisbaaska oo kaleeto, inuu markaas lagu keeno kadibna ay isticmaasho. waxaa kaloo ayagana aad loo amaanaa maraqa laga sameeyo digaaga oo kale. waxaa lagu sheegay researchigan ayaa lagu sheegay in saameyn fiican oo wanaagsan ay leedahay maraqa mar walbeeto in loo isticmaalo qofka marka uu ku dhaco hergabka. daawooyinka adiga wax kuu taraayo iyo daawooyinka wax kuu tarayn haddii aada dhakhtar ahayn ma garanaysa in uu qofka uu iska aado farmashiye sida ku badan Soomaaliya uu daawooyin iska soo gato. daawooyinkaas markuu soo gatana
in ay yihiin kuwa baabi'inaya qofkan caafimaadkiisa iyo inay ahayn asagoo garanayn qofkii inuu iska cuno hadhowna dhibka uu ka cararayo dhib ka weyn uu isku geysto hadhowna ay adkaatay in qofkii uu reesto marka mar walba isku day in aad dhaqaatiirta raacday tilmaamahooda waxyaabaha aad qaban kartid aad ay u fara badan yihiin cudurkan si aad ula dagaashid waxaa ugu horeeya nadaafadda inaad joogtaysid waxaa kaleeto ku xiga inaad gurigaaga qolkaaga aad ku ekaatid inaadan dadka u gudbinin hawadaada neeftaada taabashadaada inaad u gudbinin inta aad iska xaqiijinaysid cudurkan badanaa xaaladda ron iyo xaaladda dhexdhexaadka ee dadku ay ku fiicnaadaan oo markaas inay dhaqsi aad reesatid adigoo gurigaaga joogana aad fiicnaatid haddii intaan aad samaysid waxaad ku guulaysan kartaa inaad si fudud uga adkaatid coronavirus haddii uu ilaahay yidhaahdo waxaa si qaasa marka uga digaynaa odayaasha iyo dadka waaweyn qufucooda iyo qandhadooda haddii ay ka soo dartay yaa lala sugin ilaa ay neefqabatin ay gaaraan ama neefta ay qabato markaasba in aad xarunta karantiilka keentid ama xarunta ugu dhow uu ka helayo oxygen sida ugu fiicanna waxaa waaye in xarunta qaaska ah ee lagula dagaalayo cudurka coronavirus ventilatorna laga helayo kugu dhow inaad geysid ama wacdidoo la xiriirtid 449 waxaa rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen fiidiyogan hadduu ilaahay yidhaahdo xogta fiidiyogan aa idinku siiyey dhammaanteed waxay ku salaysan tahay researchigaasoo aad ka heli kartaan linkigiisa hoos qof walba u baahanna uu u akhrisan karaa waxaa idinkugu soo qorayaa qaybta descriptionka aada u mahadsantihiin haddii aad janalkan ka heshay fadlan subscribe dheh si aad noola socoto mar walbeeto haddii uu dhib nagu dhicin insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo usbuuc walba waxaa soo dhigi doonaa janalkan 3 fiideo hadduu ilaahay yidhaahdo marka mar walba nala socda insha allah wixii talo iyo cudur aa u baahan tihiin si gaar in looga hadlo fadlan kusoo qora commentiga wax walbo ra'yigiina aana noogu soo dira commentiga aada u mahadsantihiin waa salaamantihiin dhammaantiin